waxaan soo kiyaadhay inaanu warbixinada ka siino maanta rabshad ka dhacday xabsiga dhexe ee gobolka Awdal rabshadaas oo ay sameeyeen maxaabiistii ku xidhnayd iyo ciidamadii ilaalada xabsiga oo runtii arintaa inay joojiyaan qabtay rabshada waxa ku dhintay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiinayna janooyinkiisa inuu naxariisto marxuum Yunis Ahmed Daahir waxaana ku dhaawacmay Xamse Mustafa Umar Abdi Qaadir Aadan iyo Xasan Xuseen Qaliinle hal marxuum baa ku geeriyooday oo Yunis Ahmed Daahir la yiraahdo iyo saddex maxbuus oo kale saddex maxbuus dhaawacoodu aad buu wanaagsan yahay waxaana lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee gobolka Awdal degmada Boorame marxuumkii halka waxa fadhiyay jifadii ama qoyskii uu ka soo jeeday marxuumka dhintay guddi nabadgelyada iyo janankii guud ee ciidamada asluubta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland suldaankii guud dan Ahmed Cilmi Kabaal oo wada garanaysaan walaaladii iyo family-gii uu marxuum ka dhintay baa halkan wada fadhiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walbana maalin buu dhimanayaa si kasta uu ku baxo maalin buu qof walba ka tagayaa tan waxaan aad uga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ma jifada marxuumku ka baxay oo walaaladii halka fadhiya inay sameeyeen ilmaaradii salaadiintii iyo qoyskii oo dhan iyagoo isku duub inay sameeyeen runtii arin aad u qiimo badan gobolka iyo shacabka deganna runtii u baahan in lagu daydo hadaan dawladda nahay anagoo ku hadlaya afkii dawladda marxuumka halka ku dhintay waxaanu go'aaminay in magtiisa ay dawladdu qabto aaskiisina waa la bixinayaa magtiisina ay qabto waxaanu ku heshiinay jifadii marxuumka inay iyaguna sida ku samraan ku aqbalaan ku qaataan insha Allah ta'ala si guudna aaskiisa aan maalinta biriya uga wada qayb gali doono sababta maanta wuxuu dib ugu dhacay jifadii baa iyo family-yada baa runtii aan la sugayna aaska laakiin hawsha waxaanu si wada jir ugu wada dhameynay in marxuumkaana magtiisii dawladdu qabto iyaguna sidaasay ku samreen ku qaateen waana uga mahad celinaynaa suldaanka guud ee beesha suldaan Ahmed Cilmi Kabaal iyo odayada jifadu ka soo jeediyay walaaladii oo si wacan u gubnimo ah waxaan aad uga mahad celinaynaa jananka guud ee ciidamada ilaalada ciidamada xabsiga Soomaaliland ciidanka asluubta Soomaaliland oo runtii arinkani si gaar ah uu quseynayay jifadii uu ka dhintay marxuumkana ah oo hadaan maanta joogin arintani runtii aanay suurta gasheen aad baan kugu mahad celinaynaa generaale intaanu doonayno inaanu maanta idin la wadaagno saxaafadu waa inta aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa maxaabiistii dhaawac ahaydna isbitaalka lagu dabiibaya iyagana wixii soo gaadhay dawladda qabta sidaasaan iyagana u sheegnaa aad iyo aad baa u mahadsantiin intaa kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay suldaan Axmed Suldaan Cilmi Rooble Furre oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland waxana uu yiri anigoo ah suldaankii guud ee marxuumka maanta Yunis Ahmed Ducaale oo ka baxay waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadu ka baxay iyo ehelkii iyo dhammaan reedidu meesha joogaanba waxa la samariimay anaga wada siiyo hadalkii gudoomiyaha dhameeyay halka waxa fadhiya madaxdii gobolka
taliye qaybta booliiska gudoomiyihii jarankii ciidanka asluubta maayirkii marka waxaan isla garanay in hawshaasi sida aan ku dhameysano hawshuna iska maqaadiir bay ahayd wax ku talagal ama ahayn maxaabiis kacdoon samaysay ahayd arintaasna maartay waa saasi ku dhamaatay waa soo qaboojiyay waa arkaas ku dhamaaday marka waxaan ku soo gabagabeynayaa sida maamulka gobolku ay hawsha soo afjareen iyo la qaadanay iyo taliyaha ciidanka asluubta General Libaax sidaas ayaan hawsha ku soo gabagabeynay waxaan leeyahay samir iimaan qoyskii heliyo ka baxayna mar labaad Allah naga siiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.